maareeyaha shirkadda dhismaha biyaha iyo qodida ceelasha dhaadheer waxaa loo magacaabay injineer cabdirashiid maxamed cumar halka maareeye ku-xigeenka shirkadda dhismaha biyaha iyo qodida ceelasha dhaadheerna loo magacaabay mudane cabdi maxamed gamaadiid sidoo kale waxaa maareeye ku-xigeenka shirkaddani loo magacaabay injineer fu'aad xasan bashiir maareeyaha wakaalada daraasaadka naqshadaynta iyo dabagalka ee dowladdeegaanka soomaalida waxaa loo magacaabay injineer maxamed mukhtaar maxamed halka ku-xigeenka wakaaladana loo magacaabay injineer xanaan cabdow maxamed maareeyaha wakaaladda maamulka iyo horumarinta guriyeyntana waxaa loo magacaabay cabdisalaan sheekh cumar halka ku-xigeenka wakaaladaasina loo magacaabay mudane maxamed ayaale xasan maareeyaha wakaaladda iibka iyo maamulka hantida dowladda waxaa loo magacaabay mudane mustafa carab xuseen halka ku-xigeenka wakaaladaasina loo magacaabay mudane cali ugaas cabdi maareeyaha wakaaladda dabagalka shirkadaha horumarinta dowladda waxaa loo magacaabay mudane maxamed cabdulaahi cali halka ku-xigeenkana loo magacaabay injineer cabdifataax cumar aare maareeyaha xarunta xaqiijinta tayada xirfadlayaasha ee c o c ga waxaa loo magacaabay mudane cali daalaja cali halka ku-xigeenka wakaaladaasina loo magacaabay mudane cabdixamiid cismaan ibraahim maareeyaha macadka cilmi baadhista beeraha iyo xoolaha ee deegaanka waxaa loo magacaabay mudane maxamed shariif cali halka ku-xigeenka macadkaasina loo magacaabay mudane maxamed faarax faalug madaxa xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta cudurka h i v aidiska waxaa loo magacaabay doctor jowhar yuusuf xaaji halka ku-xigeenka xafiiskaasina loo magacaabay mudane cabdifataax maxamed haybe maareeyaha kuliyadda farsamada gacanta ee jigjiga bolitechnic waxaa loo magacaabay mudane aadan cabdisamed cabdulaahi halka ku-xigeenka kuliyaddaasina loo magacaabay mudane maxamed xuseen cismaan maareeyaha wakaaladda diiwaangelinta marxaladaha muhiimka ah waxaa loo magacaabay marwe sahare samire geelle maareeyaha shirkadda dhismaha jidadkana waxaa loo magacaabay injineer liibaan yuusuf maxamed halka ku-xigeenka maareeyaha shirkaddaasina loo magacaabay injineer cabdisalaan dalmar sidoo kale waxaa loo magacaabay maareeye ku-xigeenka shirkaddaasi mudane aadan yuusuf raage maareeyaha wakaaladda abuurka xulka ah ee beeraha iyo calafka xoolaha waxaa loo magacaabay mudane cali baashe daahir cabdi halka maareeyaha kuliyadda maaraynta iyo adeegga shacabkana loo magacaabay mudane maxamuud maxamed fidaar maareeye ku-xigeenka kuliyadda maarinta adeegga shacabka waxaa loo magacaabay mudane khadar maxamed yuusuf waxaa sidoo kale loo magacaabay maareeye ku-xigeenka kuliyaddaasi mudane axmed xabiib ibraahim maareeyaha wakaaladda warbaahinta waxaa loo magacaabay mudane cabdilaahi xuseen cali halka maareeyaha kuliyadda caafimaadka ee jigjigana loo magacaabay doctor mukhtaar yuusuf maareeye ku-xigeenka kuliyadda caafimaadka ee jigjiga health science waxaa loo magacaabay mudane haaruun xasan abibakar maareeyaha wakaaladda dabagalka daawooyinka iyo cunooyinka waxaa loo magacaabay mudane ibraahim maxamed daahir halka maareeye ku-xigeenka wakaaladaasina loo magacaabay doctor ciid cabdulaahi maxamed madaxa xafiiska iskaashatooyinka ee deegaanka waxaa loo magacaabay mudane daahir sheekh cabdi bashiir halka ku-xigeenkana loo magacaabay maxamed daahir xaashi maareeyaha kuliyadda tobabarka macallimiinta ee doctor cabdimajiid xuseen waxaa loo magacaabay marwo nimco axmed weerar halka maareeye ku-xigeenka kuliyadda tobabarka macallimiintana loo magacaabay marwo hodan mahad maxamed waxaa sidoo kale loo magacaabay maareeye ku-xigeenka kuliyaddaasi mudane maxamed axmed cali maareeyaha hay-adda horumarinta soomaalida waxaa loo magacaabay mudane qabdiid cabdi xaaji halka maareeye ku-xigeenka hay-addaasi loo magacaabay mudane khadar axmed caaqil madaxa xafiiska xuduudaha iyo xalinta khilaafaadka deegaanada deriska ahna waxaa loo magacaabay mudane cali samire sigad